mudane Maroyn kusoo dhawaada koorsada Diploma in Office Management and Secretarial Skills. ugu horeyn waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqdo macalinkaaga ku bari doono diblomadani ama koorsadani Office Management and Secretarial Skills. magacaygu waa Abshir Mohamed, waxaan ahay ama aan noqon doonaa baraha ku bari doona koorsadani diblomada ah oo aad ku qiimaha badan aan insha Allah taala ku bari doona. koorsadani inta inoo socoto waxyaabo aad ku baran doonto waxaa kamid ah office management maxaa la dhahaa, sidoo kale secretary-ga waxyaabo asiga uu qabanayo ama xirfadaha looga baahan yahay maxay yihiin, iyo sidoo kale waxyaabo far badan aan ku baran doona ama aan ku ogaan doona muuqaalkani kooban. Office management waa habka loo qorsheeyo, loo maamulo, loona hago howlaha xafiiska si howlahaasi ugu socdaan si nidaamsan oo habsami leh. Secretary skills waa maxay? Secretary skills-ka waa xirfadaha uu leeyahay qofka secretary-ga ah, sida qorista waraaqadaha ayaa kamid ah, qabanqaabada shirarka, ka jawaabida taleefanada macaamiisha, iyo sidoo kale maareynta howlaha ayaa kamid ah. Haddaba yaa baran kara koorsadani Office Management and Secretarial Skills? waxaa baran kara ardayda jaamacadaha iyo dugsiga sare ayaa baran kara, dhalinyarada shaqadoonka ah ayaa baran kara, sidoo kale waxaa baran kara qof walba oo rabo in xirfadiisa kor u qaado ayaa baran kara. waxaa baran kara xogayaasha hay-adaha dawliga ah iyo sidoo kale kuwa aan dawliga ahayn ka shaqeeya ayaa baran kara si ay u horumariyaan xirfadoodii. sidoo kale waxaa baran kara maamulayaasha ayaa baran kara oo noocyadooda kala duwan fildi walba ay ka socdaan. sidoo kale waxaa baran kara qof walba xiiseynaya barashada xirfadani ayaa ka faa'iideysan kara ama baran kara ama qaadan kara koorsadani. haddaba marka waxaa lagu leeyahay maxaad ku baran doontaa koorsadani inta inoo socoto? koorsadani inta inoo socoto waxaad ku baran doontaa waxyaabo aad iyo aad u tiro badan ay ku baran doontaa, sababtoo ah koorsadu waxay ka kooban tahay ilaa iyo 12 jabtar ay ka kooban tahay. 12kaasi jabtarna mid walba waxaa looga hadlaa marka topic ama mowduuc ama jabtar gooni ah ayaa looga hadlaa. sidoo kale waxaa lagu bartaa marka skills iyo sidoo kale cilmi oo gooni ah ayaana lagu bartaa oo mid soo laabanayo ma jiro. haddaba marka waxyaabaha aad ku baran doonto haddii aan soo koobno waxaa kamid ah qeexitaanka Office Management and Secretarial Skills waxa uu yahay aad ku baran doontaa si in details step by step ayaadna u baran doontaa. noocyada qofka secretary-ga ah ayaad ku baran doontaa, marka noocyada secretary-ga dadka ay u qaybsamaan ayaad ku baran doontaa. waxaad ku baran doontaa sidoo kale time and task management ayaad ku baran doontaa, sida waqtiga iyo marka howlaha loo nidaamiyo oo loo maamulo ayaad ku baran doontaa. noocyada fariimaha iyo sidoo kale maamulidooda ayaad ku baran doontaa. xirfadaha qoraalka sida waxaad ku baran doontaa qorista waraaqadaha, emailada iyo warbixinada sida loo qoro ayaad ku baran doontaa. sidoo kale waxaad ku baran doontaa maareynta fileska iyo xogaha ayaad ku baran doontaa, sida loo maareeyo, loo maamulo xogaha iyo faylasha shirkadda kambaniga ayaad ku baran doontaa. taleefanka iyo sidoo kale adeega macaamiisha ayaad ku baran doontaa, sida taleefanka iyo sidoo kale macaamiisha loogu adeego baahidooda looga qabtiro, marka kooliskooda iyo marka wicitaanadooda loogu jawaabo. dhammaan intaasi oo inka badan ayaad ku baran doontaa. qabanqaabada shirarka iyo safarada shaqo ayaad ku baran doontaa, sida loo maamulo, loo qabanqaabeeyo, loo jadwaleeyo marka ayaad ku baran doontaa shirarka iyo sidoo kale safarada shaqada ee marka shirkadda. waxaad ku baran doontaa maareynta waqtiga iyo jadwalka shaqo ayaad ku baran doontaa. ilaalinta xogta shirkadda ayaad ku baran doontaa oo waajibaadka uu leeyahay ay ka mid tahay qofka secretary-ga. waxaad ku baran doontaa maamulidda ballamada ayaad ku baran doontaa. haddaba marka intaasi oo yar kuma baran doontid koorsadani inta inoo socoto, waxaad ku baran doontaa waxyaabo aad iyo aad u tiro badan, sidoo kalena muhiim u ah, lafdhabar u ah koorsadani marka Office Management and Secretarial Skills. koorsada waxay ka kooban tahay ilaa iyo marka 50 iyo dhowr cashar ay ka kooban tahay, 12 jabtarna way ka kooban tahay. haddaba marka waxaan rajaynayaa koorsadani inaad ka heshay concept fiican oo marka kugu riixi kara ama kugu dhiirigelin kara inaad koorsadani aad qaadato ama aad barato si xirfadaadi kor aad ugu qaado. haddaba marka kusoo dhawo koorsada Diploma in Office Management and Secretarial Skills aad iyo aad ay farxad igu tahay. ilaa iyo iminka haddii aad marka daawanaysay muuqaalkani quruxda badan, waxaan rajaynayaa inaad tahay qofkii waqtigaasi iyo sidoo kale juhdigaasi iyo koorsadani inta markay socotay aan u soo diyaarinayay inaad tahay ama aad ka mid tahay aan ku rajaynaa insha Allah tacaala. waxaan idin leeyahay marka dhammaantiina waxaan isku arki doonaa wiilal iyo gabdho saad u dhantiinba koorsada dhexdeeda annagoo kala faa'iidaysanayna ayaa halkaasi ku kulmi doonaa insha Allah tacaala. waxaan idin leeyahay markaas soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.